kadibna waxay qaaday firaashkii wayna dhaqday kadibna way wanaajisay. maamadii waayeelka ahayd waxay tidhi waxaan ku dhahay xaaskii wiilkayga gabadhaydii waxaan leeyahay saaxiib waxayna ii dhiibtay lacag waxayna igu tiri ii soo iibi waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan sida dahabka oo kale iyaduna cabirkeeda waa kaaga oo kale ee ii dhiib dahabka gacanta kuugu jira. deedna way u dhiibtay gabadhii. waxay aaday maamadii waayeelka ahayd suuqa waxayna haysatay lacag aad u fara badan. lacagtii oo idinlan waxay ku soo iibisay dahab iyo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan. kadibna waxay iskugu yeertay wiilasheeda iyo xaasaskooda waxayna soo bixisay dahabkii iyo waxyaabihii la isku qurxinayay. waxayna u sheegtay inay biyo ahaayeen wixii ay ku shubaysay firaashka balse aysan ahayn kaadi siday moodayeen gabdhuhu. kadibna waxay dahabkii gelisay gacanta xaaska wiilkeeda ugu yaraa waxayna tiri maamadii waa tan gabadhayda taasi oon ku badbaadayo agteeda inta aan waayeelka ahay cumrigaygana aan ku dhammaysanayo iyada agteeda. labadii xaas ee kale aaday u naxeen waxayna shalleeyeen shallayti midii u darnayd. alla weyne kor ahaaye wuxuu yidhi hal jazaa'u lixsaani ila alixsaan samaan abaalkeedu ma waxaan ahayn baa samaan. sidoo kale alla weyne wuxuu yidhi ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.